ijaabo waxa soo batay guurka qodbasirada saan hore u sheegnay horta diiniyan maxalaal baa soo xaraan ani u malayn maayo nin qodbasira Soomaalida magaca isaga bixisa maahine gabaraan nikaax lagu xirin ma jirto nikaax wuu dhacay waa la qariyay ha marka hadii la qariyay kullaybo qariskaas la qariyay ani waxay ila tahay nikaaxi haduu dhacay qariskan la qariyayna labada qof oo isqaba isaga raali ah haddaysan gabadha raali ka ahayn lama qariyeen anise ila tahay maskaxiyan ahaan taasna culimada ka jawaabaysa culimadii baa joogta qudbasirada horta waa labo mid waxa waaye mid ay raggu naagahooda ka baqayaan gabadhii waligeedii la weydiisay laakiin naagta laga qaninaya waxa la leeyahay cidnayaan loo sheegin meel buu dajisanayaa maalintiibu hadduu doono markuu shaqada aado ama salaada subax markuu soo tukado buu imaanayaa wuxuu la joogayaa ilaa 2 saac 3 saac masaajidkan quraan ku soo akhriyo oraya hadhow xaaskiisii aadaya midina waa midaan banaanayno kaasi ma banaano oo waa qudbasirada la sheego oo ay nimanku qarsadaan sida la ajireed kaasi waa xaraam laakiin kan kale waligeeda la weydiisay naagta uu ka baqayaa mooyaane reerkoodii uu weydiisay wayna banaan tahay laakiin tii la guursadaa dib ku qabto haday xanuunsato iyo haday umusho midna lama oga kaligeed baa qolka haday habeenkii xitaa qolkii ku meedo cidima oga haday xanuunsato kaligeed baa dhakhtar aadaysa oo wax qarsoon laakiin diinta uu ku banaan yahay waligeedii uu weydiistay hadii aan ka hadalno su'aashii aan weydiisay wuxuu ahaa xukunku islaamka ka qabo qudbasirada maxay tahay saddex qaybood ay culimadu u qaybiyeen qayb waa kii gabadha ay ka hadashay laba qayb gabadha ayaa ka hadashay oo waxay tiri mid waa inaysan ka warqabin ehelkii oo cid ka warqabta jirin walina ma oga nikaaxas waa baatil sida culimada ay rasheegaan inkastoo qowl oo aad u xoog badan uu leeyahay gabadha rin way guursan kartaa kan labaad oo gabadha ay ka hadashay waxa waaye in waxa la dhahaa ehelkii og yahay laakiin naagtii uu laga qariyay kaasna imaam Ahmed naftiisa wuxuu u kala qaybiyay culimada laba u qaybiyeen imaam Ahmed wuxuu diiday in la qariyo guurka aslan oo wuxuu sheegay iclaanu nikaax baa guurka loogu talagalay waa in la ogaada culimadana waxay dhahdaan qayb umada kamid ah haday og tahay intaas kaga filan iclaan oo in shakhsiga walba uu ogaado qasab ma ah marka wixii maslaxa loo qoriyay muddo muayana oo muddo waqti gaaban ah dib ma leh laakiin in la dhaho gabadha waligeed ba qarsanaato sida gabadha ay sheegtay dib ayaa ka imaanay islaamkana dib kama ogola la darar wala dirar wax kasta oo dib keeno waa in la zuuliyo dibka adrar yuzaal maadaama guurkii haduu dib ka imaado mid lagu degan yahay oo nafti ay ku xasilan tahay ma noqon doono sida darteed waxa ka ratib maaya noocaas guurka kamid ah in aan la aqbalin oo la joojiyo oo islaamkana uuna ayideelin waxa jira guurar laftirkooda shuruudo ah waxa laga yaabaa laba qof isjeclaatay waa la sheekaystay inkastoo hadda nimanka hadda jooga guurkaba ay gogasho u fahmeen qaarkood oo guurkaba loo maleeyo inuu intaas la ku egyahay muddo isqabayna 5 bil 3 bil 2 bil hadaa isfahano oo labadanada aan isfahmi karno oo dad isfahmay aan noqono waa dheeraysan karnaa guurkaas laftirkiisa shuruudo la isku guursanay maxay diintu ka qabtaa guurka xaraan way nikaaxu mutca la dhahaa xaraan qadci way la isku guma iimaanay ha ninku haduu ila guursado inta dhacaysanay guriga ma ka xidhin karaa horta ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu dhahay quraanku ku sheegay waashiruhunna bil ma'ruf wuxuu amray muaashara xasana dhaqan wanaagsan waa laba dhinac inuu ka imaado hal dhinac kelima aha hadii aad xanaaqsan tahay waxa wanaagsan in aad kala hadashid arinkaas oo ana ka codsatid in adiga u baahan tahay inaad nasatid ama aad ka maqnaatid muddo si mushkilada loo xaliyo laakiin ma aha guriga iiga baxayo ina adiga ka baxdana kuma banaan ina asaga bixisana kuma banaan sharcan laakiin wixii la isku afgarto aad dhahdo aniga sidaan dareemaya xanuunkana ahaya waa ma sirsanahay dibna ma aha ina ka sheegtid ina sheegtid sida dareemaysid waxaan u baahanahay ina nasto waqti isi taas hadii uu ka ogolaado inuu guriga ka baxo iyadoo lagu wada heshiiyo dib male hadii adiga uu ku ogolaado ina baxdo muddo kadib asoo noqotana dib male laakiin in guriga lagu burburiyo sabab nin kinaag labaad uu guursaday animu arkay xal inay tahay waayahay intaan barnaamijka soo gabagabeynin gabdha yar yar barnaamijka inta badan nagala qayb galaayo oo laga yaabo qaarkood inaysan wali guursan adduunyada waa u hor leedahay ninna waa rabaan iyo inay aroosaan maxaa talood siin leedeen horta gabdhaha si u noqdaan gabdho wanaagsan oo qoys islaam ah oo wanaagsan oo Soomaali ah oo u soo baxo horta gabdhayahow waxaan idinku talinayaa horta midda ugu horeyso Ilaahay cabsidiisa ayaan idinku dardaarminayaa xogaago waxaad moodaa ilbaxnimo casri inayna soo gashay
gabadheena haddaan caroodo macnaha haddaan masayro ninka guriga ma ka cayrin karaa tiibaa waxoogaa aan daba socdaa horta ninka ilaaha qawaamo siiyey inaan ma aragtay aan mas-uuliyadiisa inaan u ictiraafno guriga asagaa iska leh asagaa maxay tahay yaa mas-uulka ah nin gurigu mas-uulka ka ah haddii la dhawaa laga cayrin meesha dagaal xun baa yaalla marka horta inaan mas-uuliyadii aan ogolaano nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi haddaan qof bini aadan aan u sujuud dhihi lahaa haweeney ayaa waxaan dhihi lahaa ninkaaga u sujuud meeshaasay jirtaa arrinta horta meeshaasa idiga jirto haddii ma aragtay ninkii uu kugu xumaadana waxaa la rabaa inaad ilaahay ka barido nabiyullaahi ibraahim marka idima badinayo laakiin example aa usoo qaadanaya markii maxay ahayto ay gaaladii ay dabka ku rideen muxuu yidhi ilaahi subxaana wa tacaala yaa naari kunii bardan wasalaaman calaa ibraahim ilaahayow ninkan xunka oo dhibka badan oo marka hore nin fiican iskaga kaydhigay oon sidaa ku guursaday oo haddana markii dambe ila soo baxay through kalagiisa ila soo baxay oo macnaha wejigiisa iga qarsoona weji kale ila soo baxay ilaahayow adiga bardi iyo salaam iga dhigi kartaa horta waa inaad tiraahdo gabarya muslimada ah maxaa yeelay waxaan meesha ka bixinay wax maqaadiir la dhaho gabdhaha horta inay isku kalsoonaadaan kalsoonidooda iyo self esteemkooda inay kor u qaadaan inay hadday guursanayaan ninka ay guursanayaan reerkooda ay u keenaan laga fiiriyo hadday reer ku yiraahdaan ninkan nin fiican ma aha ilaan waalidka wuu ka garasho dheer yahay wuu ka weyn yahay in uu yiraahdo ka istaag inay waalidka warkooda maqlaan gabdhaha guriga leh waxaan ka waaninayaa nimanka markii ay guriga yimaadaan oo shakiga iyo shidada lagu ibtilay ninka markuu taleefankiisa komadiinka saaro inta qaadid ha fiirinin oo ha dhihin yuu la hadlay yuu fiiriyey wax walbuu ilaahay kaa qiriyey qiimo iyo wanaag baa ku jira marka qoysku wuxuu ka bilowday labada qof ee lamaanaha ee shalay isdoortay waxa laga yaabaa markii la isfahmi waayo ama waqtigii uu dhamaado burbur qoyska uu ku yimaado haddii meeshaas awlaad ay joogtay dayaca ugu badan wuxuu iyo dhibaatadu waxay ku dhacdaa ilmaha xagga tarbiyadaba ha ka dhumaan mas-uuliyadda marka la fiiriyo ilmaha labada waalid yaa horta waajibku waa ilmo badanoo waxaan aragnaa hooyooyinka ay hoystaan oo qaarkood aad moodo agoon aabba leh ijaabo ilmaha Soomaaliyeed dayacan maxay ka qabtaa horta diinta islaamka marka la kala tago mas-uuliyadda ilmahaas waxa weeye mas-uuliyaddaas waxa iska leh ragga iska leh laanahu rijaalka waxay ay mas-uul ka yihiin waxay ka yihiin dumarkii iyo caruurtii marka dayacaadaas la dayacay waxaa keentay qofka wax ma dayici karo haddii uusan asaga markii horeeto lasoo tarbiyeeyey qof wax dayacay haddaa aragtid waxaa waaye qof asaga markii horeeto tarbiyadiisii ay qalal gashay ama ay xumaatay markuu qofka tarbiyadiisii ay xumaato asagana wuxuu dhalo ma tarbiyeyn karo waxaan aad cajiib u ah marka qaarkood ragga markii iyo reer baa waxa laga yaabaa inay isqabtaan ku tiraahdid reerkan ha duminina ninka gabadha waxay ku leedahay silac ku nool soddon guursataa dhaanto subxaanallah ilaahu soddon nun hortaa noo guurinin marka mahmaahdaasayto aniga weligay horta bama maqlinbo laakiin qurbaha markaan tagaan maqlay horay hooyaday iyo dadka iyo ogama maqli jirin ninkiyaa soo haray ninkii haddaa tiraahdo reerkan ha duminin wuxuu kugu leeyahay anigaba hooyo la-aanaan kusoo koray maxaa ka macno ah aabala-aanan kusoo koray maxaa ka macnaa istakfirullah markaasaytu waxa isaga ma garanayo waxa dhan uu guriga u dhisila yahay ama uu u dayacayo mas-uuliyaddan inay tahay aabala-aantii uu soo koray laannahu ilaahay markuu qofka uu abuurayay wuxuu ka dhex abuuray laba qof aabbiyo hooyo aabbihi hooyadii uu ka dhex abuuray waxay u baahan yihiin inay iskaamilaan aabbihiina uu u soo shaqeeyo iyo mas-uuliyaddii kore uu qaado hooyadiina ee ilmihii tarbiyeyso laakiin haddii uu asagii uu dayaco asagay dembi ku tahay reerkan adaa ka mas-uuliyaddii aad qaadi weysay darteed waa lagula xisaabtamaya soomaalida dhibka ka jiro tahriibka balaayada gabdhahan la wada furayo gabdhahan iska socdo oo muxram la'aanta kulli raggii dhalay baa dayacay ilaahay hortiisana ayaga la weydiinaya marka waxaan aad iyo aad dadku ugu boorin lahaa qofka mas'uuliyadda inuusan qaadin haduusan qaadi karin لأنه هدو مسؤول قاد واجب يكون قنيسة لكن قصب ملغو دهايو إلا مسؤول قاد هدادا قادي كرين مركه ربك كفكر intaas kadib waxaan rabaa ilmihii waxa markii la dhalay kadib
tarbiyadoodii ilaahay sibuu ugu talagalay muxuu ugu talagalay ilmihii horta hore qofka labada qof markii ay laba qof oo isguursadeen meel fiican ka yimaadeen siday walaalo noo sheegeen habkii uu ilaahay uu doortay maaragtay ama kitaabada aan ku aragnay ama nabiga calayhi salaatu wasalaam noo sheegay lagu guursaday kadib maxaa loo baahan yahay waxaa loo baahan yahay reerkan markay isu yimaadaan oo processkii loogu talagala dhan ay soo dhaafaan horta hore inay fariistaan oo ay ducaystaan markay ducaystaan kadib ay ka hadlaan reerkan la dhisay sidee loo wadaaya ilaan wax walba adduunka joogo wuxuu leeyahay rule and regulation uu leeyahay sharci buu leeyahay sharcigee rabnaa gurigan habkee rabnaa inaan u dhaqanno habkee rabnaa inaan wax u suubino ilmo markaan hadduu ilaahayna siiyo oo risiq ilaahay nagu irsaaqo sidee rabnaa ilmahan inaan u korino maalin dhaweedaa gabar waxay iga sheekaynaysay ninbaa wuxuu ka soo tegay 6 caruura 7 caruura gabar kale guursaday oo wax baratayo kaala arag ma sha Allah gabadhiya waxay leedahay ninkan maxay naagta ku soo furtay waaba nin fiican maxay isku fureen waaba nin aan la heli karin waxaan aniga markii la ii sheegay Allahu akbar reerkan horta caruur markay dhalaan kadib su'aashaas la isweydiinayaan ku iri dhibkaba wuxuu yimaadaa markii wax la dhalay intaan wax la dhalin dadku waa saaxiib wax la isku qabanayaaba iska yar haye wax macnaaha ma israacnaa haye hatta dhaqaalihii oo kale tumaba la isku qabsanayo laanahu labadan qof waxa way maxay cunayaan laakiin markay caruur timaado oo masuul yimaado oo cunno timaado oo isbitaal yimaado oo xafaayad timaado oo iskuul yimaado oo dugsi yimaado maalintaas waa markay shidada bilaabanayso marka waxa waaye masuulka ragaabu ilaahay saaray dumarkana waa inay uga dambeeyaan macnaheeda waxa weeye haddaan guriga la kala dambaynin gurigaas waa dumaya inuu dumana marna naagaha dumarka keena marna ragga keena mar dumarka keeno waxa weeye mar alla markay wax dhashay inta horeeto raggii markii la wareystay waxay la yiraahdeen on research suubina waxay yiraahdeen gabadha intaysa wax dhalin waa ma sha Allah kaala arag markay hala cunug dhashay 2-3 markay dhashay ninkaaneeto maba ku bixin kare waxa rabtid ka sameey waa ninkiina muxuu sameeynayaa gabadhan waxbay dhashay meeshaan maba ka bixaysay adi maalba furiinka ugu bootay marka هذا واحد سميس وكفرة واحد سداد سميس وكفرة ما قد جرى ناكتان لنفري وحان هذا كهر يربكو أكل الجري الله يرحمه إن شيخ عمر فاروق وحي وبركو نوي من 1993 وحي نوي من مجال إسويدن اللي يراه وحي سمينا يرجع دلقتكو طلبوا توسدح مركي دنبي لشيق وقيل راد مرك سوى حيالنا مركا سولي مركا هريتو محا سجد ليسان بهاشانيتو in lagu dheelo looguma talagelin markay wax laga fursan waay laanahu guri dumay arshiga ilaahay ayaa ka gariira shaydaanka reerkaas isku soo dirayna waxa la fariisiyaa kursi aan dadka kale la fariisan taajna waa loo saaraa marka guriga weynanka uu leeyahay annagana waxa Soomaali hadanahay aad noogu batay waxaan la yiraahdo furiinka gabar 20 aan gaarin oo waxa arkaysaa 2 ilmood wadato maxaa keenay koow sabirka waa yarya هذا قبلها dhalinyarada ay raga joogo romantic iyo flower in la isku keeno iyo ma sha Allah gabar yahay I miss you iyo darling iyo waalidii yaqaana laakiin sabir waa ibr waa mahadsantahay ijaabo Maryan Shariif gabdho badan oo Soomaaliyeed barnaamijkan hadda nala jooga qaarkoodna barnaamijka daawan doono marka in laga hadlo qoysaska Soomaaliyeed furiinka ku badan guurkana waa ku badan yahay waxa arkaysaa xaafadan hadda isliin nin baa degan naag ilmu leeyahay waxa laga yaabaa subaxii guriga ka quraacda sawdsiinana kala qadada u tagaa oo qod basira ah aad qod basirada noogu soo badatay horta diiniyan waxaan guurkan la qariyay guurku waa wax sharaf leh sababta loo qariyay ninkan laga yaabo inuu qoyskan iyo naagtan ka cabsanayo laakiin haddana dhibaatooyinka ay kamid tahay marka la ogaado hadhow lagu kala tago maxaan dhihi karnaa marka guurka laga hadlo rag waxay yiraahdaan afar baa horta waxay dumarka ku bacsadeen afar baa alla noo baneeyay guurkana sidiisaba واجب دينيا ما أهنا قفك وأنا جورسن كرا وأنا سكدين كرا قف عذاب يجنكم متيسنا يملا محاو جورسن ويدا وكل آخر الأسودين معي إن مركل فيريو وحنا أوجو بدن ولا ده أما علماء وحبرتي حقا وكر جبرون يكوا كلا وكذا خال بدنيهين وحلاقي أبا ملاب كودي حبت سودة ودي دخلوا هذا وبدنيه وحرك كرينا كهر ريان أم ليسا نكن وحلاقي أبا إنه بلود ليه ما شو ناك كقب صدق ناك بلود أبا كبدنه أو مسؤولية كلا سارن أو على إسكوه furiinka faraha badan culimada ugu badan laftirkeeda asagoo diintii bartay markuu maanta gabadhan furo barmid kala furo 4 iyo 5 kala barba dumarka isaga uu soo maray diintii uu bartay aaw mas'uuliyadeedii xaqiiqatan horto ilaahay subhanahu wa ta'ala wa maxayto
wuxuu sheegay nabiga calayhi salaatu wasalaam adeerkii asagoo faallo oga bixinayo innaka laa tahdi man axbabta walaakin allaha yahdi man yasha dhibaatooyinka way jiraan boqolkiiba 80 way jiraan dhibaatooyinka aad sheegayso xamdiyey balse waxyaalahaasoo idil markay yimaadaan sidaan aan ku gabagabeeyey hadday khitaabkaygii allabari baa looga baxaa allabari in looga baxo ma dhihi karno gabdha iyo wadaadada iyo idiin soo dhawaanin ma dhihi karno mana dhihi karno wadaadadii idilna dembi ma wada saari karno maxaa yeele waxa waaye wadaadada waxa waaye waa indhihii mujtamaca waxay dhahaan culimo qiil ma weyse adigu qaalin ma haysa marka xataa saddexdii markii la isku furo qiilkii way un keenayaan marka waxa waaye culimadeena ilaahay soo hanuuniyo kuwii howlaha ku dhex jiro wadankii burbura ka dhacay noloshii qofba meel ay ka gashay waxa laga yaabaa in dadka aysan isku meel daruufti u helin inay ku wada noolaadaan horta sharciga islaamka maxay ka qabtaa kala maqnaanshaha faraha badan muddo intee la eegaas diinta ogoshay in labada qof ay kala maqnaadaan diiniyan bismillaah kala maqnaanshaha waxa way labay noqon kartaa mid duruuf ay ka kaxayso oo qofkii sidii hadda salama oo kale radiyallahu anha markay soo haajirayeen asxaabta haweenkoodii waa soo haajireen diintaadii markaa la haajiray sidoo kale waa kala tegi kartaan wadankii maxay toole markii dhibaato sideenoo kale wadankeena ay uga dhacdo burbur iyo dhibaato hadda qoys isla wada nool ma jirto caruurtii aabihii kulli waa duruuftii kala kaxaysay laakiin haddii uu qofkaas kas iyo maag iyo maxay toole xuduudii ilaahay uu jaraya haddii uu 6 bilood ka badan ma maqnaan karo ninka sharciga islaamka kama maqnaan karo haweenkiisa yacni ilaa ay duruuf inay isaga raali yihiin ma ahane 6 bilood kaliya loo ogol yahay inuu ka maqnaado